kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. haddii nagu cusub tahay subscribe dheh qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. haddaad qof siiso wax uusan ku weydiisan in uu kaaga mahad celiyo aad ayay u yartahay kuwa garanaya qiimaha kelmaddaas mahadsanid kaba soo qaad qaar baa kuu maleeya doqon lacagta bixiyay oo berri ama maalin kale ayaa laga yaabaa in haddana ay ku weydiiyaan kii aad maanta hadiyadda siisay niyad furnaanta deeqsinimada iyo dareenka bini'aadannimo kuma xirna midabka qofka iyo madhabta diiniyan uu aaminsan yahay balse insaaniyadda qofka ee alla uu ku abuuray ayay ku timaadaa arrintaas iyo dabcigiisa gaarka waxaa hubanti ah in dad badan ay aad uga falcelin lahaayeen qiimaha ay ku leeyihiin awgeed kuwa deeqsiyadda ku caanka noqday oo waxa ay helaan kala bar ama wada bixiye tuluucda warbixintan ayaan ku eegaynaa falcelinta ka timid abaalmarinta la siiyey macalinka ugu wanaagsan adduunka oo lacag $1 milyan Mareykanka la guddoonsiiyey macalinkan wuxuu ka soo jeedaa tuulo ku taala dalka Hindiya wuxuuna helay macalinkani abaalmarinta caalamiga ah ee macallimiinta la siiyo oo lagu ammaanay sida uu ugu shaqeeyay waxbarashada gabdhaha Ranjisteen Dizale ayaa la siiyey lacag dhan $1 milyan Mareykanka waxaana markii lagu dhawaaqay inuu yahay macalinka sanadka uu kala bar lacagtii siiyey oo u dhiganta $500,000 Mareykanka macallimiintii kale ee soo galay kaalmaha hore 9 macallin ee isaga 10 uu ku ahaa isagana gadaashiisa maray ayaana lacagtaas ugu deeqay guusha Mr. Dizale waxa ku dhawaaqay Stephen Fry oo ka tirsan hay'adda bixisa abaalmarintan waxaana natiijada looga dhawaaqay qaab fogaan araga ama aaladda zoomka loo yaqaano sabab la xiriira faafidda cudurka coronaviruska tartanka ayaa waxa ka qayb galay ilaa 12,000 oo macallimiin kuwaas oo laga soo kala dhex xulay macalinka reer Hindiya ee guuleystay dunida daafaheeda ayaana macallimiinta ku sugan waxa uu ugu hambaleeyay guusha uu gaaray kuna tilmaamay isaga inuusan kala jeedin mid gaar ahna isaga aan ugu talagelin maruu hadlay macalinkaas wuxuu yiri xilligan adag macallin walba waxa uu ku dadaalayaa sidii uu xaqiijin lahaa in arday walba uu helo waxbarasho wanaagsan Dizale ayaa sidaas oo kale sheegay in gabdhaha guurka lagula degdego uu asaga kaga dadaali lahaa kuna baraarujiyay in gabdhaha waxbarasho ku filan ay helaan inta ay da'yar yihiin Sani Farkey oo ah aasaasaha hay'adda abaalmarinta bixisay ayaa macalinka reer Hindiya ku ammaanay in lacagta uu la wadaagay macallimiinta kale ee tartanka la galay kaas oo $1 milyan isaga uu qaatay $1 milyan kalena uu siiyey macallimiintii kale ee tartanka ay wada galeen haddaba daawade bal commentiga noogu rib fikirkaaga ma doqon lacagtii uu helay bixiyay mise Deeqsi garanaya qiimaha tartanka iyo waliba dadaalka waxbarashada ayaad ku tilmaami kartaa Master Macallin Dizale lacagta uu bixiyay awgeed daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeynayna muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment intaan muuqaalkan mid la mid isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.